taariikh la xidhiidha inqilaabkii Allah u naxariistay Salaad Gabayre Kadiye waa qoraal uu arrintan ka sameeyay ambassador Awil Cali Ducaale oo ku soo qaatay buuggiisa taariikhda raadraac Soomaaliyeed waxaanay ku bilaabmaysaa sidan Korneyl Salaad Gabayre Kadiye wuxuu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ahaa sarkaal dhiiran oo aan baqdin aqoon waxa uu gabadh ka qabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan Maxamed Siyaad Barre si uu Korneyl Salaad Gabayre ugu qanciyo in uu inqilaabka ka qayb qaato wuxuu u ballan qaaday in uu Aadan Cabdulle Cusmaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ku soo celinayo xukunka wuxuu ahaa ballanqaad aanay waxba ka jirin oo aan sidiisa u hirgelin sidaas ayuu Salaad Gabayre Kadiye ku aqbalay inuu ka qayb qaato inqilaabkii 21 Oktoobar sanadkii 1969 kaasi oo ay sameeyeen saraakiishii militariga ee uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre Salaad Gabayre Kadiye wuxuu ku soo biiray waqtiyadii ugu dambeysay inqilaabka diyaarintiisa iyada oo shaxda la sii dejiyay hawlgelintii afgambiga isaga ayaa gacanta koobaad loo geliyay isaga ayaa meel walba ka muuqday Maxamed Siyaad Barre iyo saraakiisha reer waqooyigu waa ay isqarinayeen si aanay dareen diidma ah ugu abuurin saraakiisha sarsare ee ka soo jeeda beelaha Hawiye waxa kale oo jirtay in 70% askartu ka soo jeedeen beesha Hawiye ambassador Awil Cali Ducaale oo arrintan si faahfaahinaya waxa uu yiri badiba askartaasi waxa laga qoray Muqdisho iyo deegaamada ku hareeraysan muuqaalka Korneyl Salaad Gabayre Kadiye ee uu hawlgelinta inqilaabka gacanta ku hayay kalsooni ay ku abuurtay saraakiishii iyo askartii ka soo jeeday beesha Hawiye oo haddii ay ka soo horjeestaan si fudud u fashilin lahaa inqilaabka uu soo qorsheeyay Maxamed Siyaad Barre saraakiil ka soo jeeda beelaha Hawiye oo ku tilmaaman geesinimo iyo khibrad ayaa ka mid ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo aan ka xasuusta buuri Awil Cali Ducaale Korneyl Maxamed Faarax Ciidiid Korneyl Cabdalle Barre Korneyl Ibraahim Doonyaale Korneyl Maxamed Nuur Baarqab Korneyl Abakar Gacal Korneyl Nuur Cadow iyo kuwo kale oo aanan halkan ku soo koobi karin kaalintaas weyn ayuu Korneyl Salaad Gabayre Kadiye ka qaatay Allah u naxariistay hirgelintii inqilaabka Oktoobar ee ciidamada golihii sare ee kacaanka ee uu Maxamed Siyaad Barre dhisay Salaad Gabayre xubin ayuu ka noqday waxa kale oo lagu magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda waxaase Salaad Gabayre ka cadhaysiiyay markii uu ogaaday in sodogii madaxweynihii hore Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cusmaan iyo ra'iisul wasaare Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo General Maxamed Abshir Muuse iyagana la xidhxidhay oo xabsiga loo taxaabay iyaga oo aan wax xil ah oo dawladnimo aan markaas hayn dhowr maalmood kadib ayuu Korneyl Salaad Gabayre Kadiye Allah u naxariistay afgooye tagay halkaasi oo ay ku xidhnaayeen madaxdii dawladda la inqilaabay wuxuu amar ku siiyay taliyihii ciidanka ilaalada in uu sii daayo Aadan Cabdulle Cusmaan Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo General Maxamed Abshir Muuse taliyihii isaga oo fulinaya amarkii wasiirka gaashaandhigga ayuu saddexdii mas'uul halkaasi ka sii daayay waxay arrintani naxdin iyo baqdin ku abuurtay General Maxamed Siyaad Barre iyo saraakiishii golaha sare ee Kadiye waa qoraal uu arrintan ka sameeyay ambassador Awil Cali Ducaale oo ku soo qaatay buuggiisa taariikhda raadraac Soomaaliyeed waxaanay ku bilaabmaysaa sidan Korneyl Salaad Gabayre Kadiye wuxuu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ahaa sarkaal dhiiran oo aan baqdin aqoon waxa uu gabadh ka qabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan Maxamed Siyaad Barre si uu Korneyl Salaad Gabayre ugu qanciyo in uu inqilaabka ka qayb qaato wuxuu u ballan qaaday in uu Aadan Cabdulle Cusmaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ku soo celinayo xukunka wuxuu ahaa ballanqaad aanay waxba ka jirin oo aan sidiisa u hirgelin sidaas ayuu Salaad Gabayre Kadiye ku aqbalay inuu ka qayb qaato inqilaabkii 21 Oktoobar sanadkii 1969 kaasi oo ay sameeyeen saraakiishii militariga ee uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre Salaad Gabayre Kadiye wuxuu ku soo biiray waqtiyadii ugu dambeysay inqilaabka diyaarintiisa iyada oo shaxda la sii dejiyay hawlgelintii afgambiga isaga ayaa gacanta koobaad loo geliyay isaga ayaa meel walba ka muuqday Maxamed Siyaad Barre iyo saraakiisha reer waqooyigu waa ay isqarinayeen si aanay dareen diidma ah ugu abuurin saraakiisha sarsare ee ka soo jeeda beelaha Hawiye waxa kale oo jirtay in 70% askartu ka soo jeedeen beesha Hawiye ambassador Awil Cali Ducaale oo arrintan si faahfaahinaya waxa uu yiri badiba askartaasi waxa laga qoray Muqdisho iyo deegaamada ku hareeraysan muuqaalka Korneyl Salaad Gabayre Kadiye ee uu hawlgelinta inqilaabka gacanta ku hayay kalsooni ay ku abuurtay saraakiishii iyo askartii ka soo jeeday beesha Hawiye oo haddii ay ka soo horjeestaan si fudud u fashilin lahaa inqilaabka uu soo qorsheeyay Maxamed Siyaad Barre
saraakiil ka soo jeeda beelaha hawiye oo ku tilmaaman geesinimo iyo khibrad ayaa ka mid ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo aan ka xasuusta buu yidhi Awil Cali Ducaale korneyl maxamed faarax ciidiid korneyl cabdalle barre korneyl ibraahim doonyaale korneyl maxamed nuur baarqab korneyl abakor gacal korneyl nuur cadow iyo kuwo kale oo aanan halkan ku soo koobi karin kaalintaas weyn ayuu korneyl salaad gabayre kadiye ka qaatay allaha u naxariistee hirgelintii inqilaabka Oktoobar ee ciidamada golihii sare ee kacaanka ee uu maxamed siyaad barre dhisay salaad gabayre xubin ayuu ka noqday waxa kale oo lagu magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda waxaase salaad gabayre ka cadhaysiiyey markii uu ogaaday in sodogii madaxweynihii hore allaha u naxariistee aadan cabdulle cusmaan iyo ra'iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen iyo jenaraal maxamed abshir muuse iyagana la xidhxidhay oo xabsiga loo tahaabay iyaga oo aan wax xil ah oo dawladnimo aan markaas hayn dhowr maalmood kadib ayuu korneyl salaad gabayre kadiye allaha u naxariistee afgooye tegey halkaasi oo ay ku xidhnaayeen madaxdii dawladda la inqilaabay wuxuu amar ku siiyey taliyihii ciidanka ilaalada in uu sii daayo aadan cabdulle cismaan cabdirasaaq xaaji xuseen iyo jenaraal maxamed abshir muuse taliyihii isaga oo fulinaya amarkii wasiirka gaashaandhigga ayuu saddexdii mas-uul halkaasi ka sii daayey waxay arrintani naxdin iyo baqdin ku abuurtay jenaraal maxamed siyaad barre iyo saraakiishii golaha sare ee kadiye waa qoraal uu arrintan ka sameeyey ambaasador Awil Cali Ducaale oo ku soo qaatay buuggiisa taariikhda raadraac Soomaaliyeed waxaanay ku bilaabmaysaa sidan korneyl salaad gabayre kadiye wuxuu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ahaa sarkaal dhiiran oo aan baqdin aqoon waxa uu gabadh ka qabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya aadan cabdulle cusmaan maxamed siyaad barre si uu korneyl salaad gabayre ugu qanciyo in uu inqilaabka ka qayb qaato wuxuu u ballan qaaday in uu aadan cabdulle cusmaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen ku soo celinayo xukunka wuxuu ahaa ballanqaad aanay waxba ka jirin oo aan sidiisa u hirgelin sidaas ayuu salaad gabayre kadiye ku aqbalay inuu ka qayb qaato inqilaabkii 21 Oktoobar sanadkii 1969 kaasi oo ay sameeyeen saraakiishii militariga ee uu hogaaminayay jenaraal maxamed siyaad barre salaad gabayre kadiye wuxuu ku soo biiray waqtiyadii ugu dambeysay inqilaabka diyaarintiisa iyada oo shaxda la sii dejiyey howlgelintii afgembiga isaga ayaa gacanta koobaad loo geliyey isaga ayaa meel walba ka muuqday maxamed siyaad barre iyo saraakiisha reer waqooyigu waa ay isqarinayeen si aanay dareen diidmo ah ugu abuurin saraakiisha sarsare ee ka soo jeeda beelaha hawiye waxaa kaloo jirtay in 70% askartu ka soo jeedeen beesha hawiye ambaasador Awil Cali Ducaale oo arrintan si faahfaahinaya waxa uu yidhi badiba askartaasi waxaa laga qoray muqdisho iyo deegaamada ku hareeraysan muuqaalka korneyl salaad gabayre kadiye ee uu howlgelinta inqilaabka gacanta ku hayay kalsooni ayay ku abuurtay saraakiishii iyo askartii ka soo jeeday beesha hawiye oo haddii ay ka soo horjeestaan si fudud u fashilin lahaa inqilaabka uu soo qorsheeyey maxamed siyaad barre saraakiil ka soo jeeda beelaha hawiye oo ku tilmaaman geesinimo iyo khibrad ayaa ka mid ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo aan ka xasuusta buu yidhi Awil Cali Ducaale korneyl maxamed faarax ciidiid korneyl cabdalle barre korneyl ibraahim doonyaale korneyl maxamed nuur baarqab korneyl abakor gacal korneyl nuur cadow iyo kuwo kale oo aanan halkan ku soo koobi karin kaalintaas weyn ayuu korneyl salaad gabayre kadiye ka qaatay allaha u naxariistee hirgelintii inqilaabka Oktoobar ee ciidamada golihii sare ee kacaanka ee uu maxamed siyaad barre dhisay salaad gabayre xubin ayuu ka noqday waxa kale oo lagu magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda waxaase salaad gabayre ka cadhaysiiyey markii uu ogaaday in sodogii madaxweynihii hore allaha u naxariistee aadan cabdulle cusmaan iyo ra'iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen iyo jenaraal maxamed abshir muuse iyagana la xidhxidhay oo xabsiga loo tahaabay iyaga oo aan wax xil ah oo dawladnimo aan markaas hayn dhowr maalmood kadib ayuu korneyl salaad gabayre kadiye allaha u naxariistee afgooye tegey halkaasi oo ay ku xidhnaayeen madaxdii dawladda la inqilaabay wuxuu amar ku siiyey taliyihii ciidanka ilaalada in uu sii daayo aadan cabdulle cismaan cabdirasaaq xaaji xuseen iyo jenaraal maxamed abshir muuse taliyihii isaga oo fulinaya amarkii wasiirka gaashaandhigga ayuu saddexdii mas-uul halkaasi ka sii daayey waxay arrintani naxdin iyo baqdin ku abuurtay jenaraal maxamed siyaad barre iyo saraakiishii golaha sare ee